dadka waxaan rabnaa inay kalsooni ku qabaan waqti inuusan ooga bixin inay waxaan jirin ay raadiyaan cid kuu bedeli karta darajada ma jirto cid kuu bedeli karta macluumaadka aad dugsiga sare imtixaankiisa ku soo gashay haba yaraatee ma jirto haddii ay dhacdo marka inay dad been abuur sameeyaan oo cabdalla shideeye iyo shahaado beenbeena iyo waxaasi ay sameeyaan shahaadada lagu siinaayo macluumaadkeeda oo dhan waxa uu ku jiraa website-ka wasaaradda waxbarashada ku jira adduunka meesha ka tagtid iyo sanad kastood joogtid waa la ogaanayaa waana la heli karaa waxaa laga yaabaa meel aad isleedahay laguma oga inta shahaado beenbeena aad qaadatid oo jaamacad ku gashid adiga oo sanadka ugu dambeeya jaamacadda ku jiro in dhegta lagu soo qabto oo lagu yidhaha shahaadadan aada meesha ku soo gashay shahaado sax ma ahayn waxaan rabaa inaan dadka u sheego waa faldembiyeed in been abuur la sameeyo marka horeba ilaahay subxaanahu wa tacaala wax badan uu ka hadlay diinteennana wax badan ay ka hadashay shahaadatu zuur waa been abuur waa markhaati beenaale kelmadda xataa waxaan la yaabaa shahaadada oo aan anaga isticmaalo shahaadadu waa markhaati kac markaa markhaati kac beena inaad samayso qur-aanka horta maxay ku tahay yacni qur-aanka aan akrinayno waxaan aada uga xumaadaa dad mararka qaar xataa muslimiina oo fiican oo qur-aanka akhrisanaya oo wanaagsan annagoo ah inaan garan wayno shahaadada macnaheeda waxa ay tahay ilaahi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay wa aqiimu shahaadata lilaahi war markhaatiga waxaad u bixisaan si uu ilaahay idinku og yahay u bixiya markaa waa faldembiyeed faldembiyeedka waxaa ka sii daran khasaaraha uu kuu geysanayo been abuurka inaad samayso maalmahan waxaa ila soo hadlo dad mas-uuliina waxay leeyihiin ardaygaygii oo master ka soo qaatay meel heblaayo oo tesiskii meeshii ugu dambeysay joogo ayaa waxaa la soo weydiiyey shahaadadii dugsigii sare ee sanadkii 2012 taas macnaheeda maxaa waaye macnaheeda waxaa waaye adduunku uu isku wada xiran yahay cid kaa yeelayso been abuur haba yaraatee ma jirto waxaan rabaa marka arrintaas dadkeennu inay ku baraarugaan waana la soo qabanayaa meelay ka soconaysana lama arko waxaan jeclahay maadaama annagu aanu ku dadaalay oo aan aada iyo aada ugu mahad celinayo wasaaradda iyo howlwadeennadeeda ooy habeen iyo maalin u soo jeedeen nidaamka bixinta shahaadada inuu noqdo nidaam aada iyo aada u hufan waalidiinta iyo ardayduna inay nidaamka raacaan iyaguna qayb ay ka noqdaan ilaalinta nidaamka waan ogahay maalmaha soo socda way soo tiro badan doonaan dadka dalbanaya maadaama muddo ay xirayd dadka oo dhanna lama wada siin karo hal maalin shahaadada uma soo wada bixi karto laakiin hadba intii suuragal ay usoo baxaysaa ardayda sida ay u kala horeeyaan ay u kala yimaadaan xarunta ayaa shahaadada loo siinayaa system ay leedahay oo qofka uu dalabkiisa uu ku qoranayo dalabkaas markuu ku qorto qofka wixii dalabkaas ka dambeeya wax howlo asaga u taala male waa inuu shahaadadiisa soo doontaa marka waa inuusan xafiiska dhibin sidoo kaleeto maadaama shahaadada waxa soo doonanaya ay yihiin arday dugsi sare soo dhammaysay oo aan aaminsannahay inay 18 sano iyo ka weyn yihiin waxaan ka codsanaynaa waalidiintu inaanay iyagu imaanin xarunta shahaadada laga bixinayo ha soo direeno ardaydooda aqoonsigooda ha la yimaadeeno iyagu ha dalbadeeno shahaadada iyagu jidka ha mareeno waa la maarayn karaa laakiin haddii aabbihii iyo hooyadii iyo gabadhii walaasha ahayd iyo gabadhoodii dugsiga isa soo wada raacaan ciriiri aada iyo aada u tiro badan ayay keenaysaa shaqadana ay ku kalifaysaa waxaan jeclahay inaan halkan ka sheego
maadaama shahaadada iyo imtixaanku ay yihiin howl ay qabanayso wasaaradda waxbarashada in laga bilaabo maanta aanay wasaaradda waxbarashadu wax kharash ka qaadaynin shahaadada ardayda dugsiga sare. meeshaas waxaan rabaa inaad marka aad u fiirisaan wasaaradda waxbarashadu wax kharasha oo ay ka qaadaysa malaha, laakiin waxaa jirto lacag ay qaadi jirtay wasaaradda maaliyadda. lacagtii wasaaradda maaliyadda ay qaadi jirtay wasaaradda maaliyadda sideeda ayay u qaadaysaa. waxaana ogahay inay markii hore ahayd lacag $5 ah, taas unbaa laga qaadayaa, laakiin wasaaradda waxbarashada wax lacag ah oo ay ka qaadayso shahaadada dugsiga sare haba yaraatee ma jirto. sidoo kale waxaa reeban in ama waalidka ama ardayga ama qofka dalbanaya shahaadada wax la yidhaha howl fududays uu lacag ku bixiyo. howlna kuugu fududaan mayso, inaad lacag ku bixisana sharci darro waayo. howlna kuugu fududaan mayso, wax kuugu fududaanaya haba yaraatee lama arko. muwaadinaad tahay, xaqaad leedahay, imaaw xaqaaga soo doono oo sameey. kalsooni aad u weyn aan ku qabaa shaqaalaha wasaaradda. waan la kulmay, waan la sheekaystay, waan arkay waxay diyaar u yihiin inay si hufan ugu shaqeeyaan dadkooda, inay si hufan ugu shaqeeyaan. marka goobtani waa goob ka caagan wax la yidhaha hawsha ii fududay iyo ii dadeji iyo ii hoosgeli iyo waxaas umana baahnid, lagaamana yeelayo. marka taasaan doonayaa in aad idinkuna maskaxda ku haysaan. guud ahaan waxa aan jeclahay inaan la hadlo waalidiinta Soomaaliyeed, inaan la hadlo dadweynaha Soomaaliyeed, in dareenkooda ku saabsan waxbarashada carruurtooda ay aad iyo aad u kordhiyaan, ka warhayntooda ay aad u kordhiyaan, inay iska daayaan oo iska iloobaan laalaabka, inay iska iloobaan. ilmahaaga wakhtiga ha ka luminin. iskoolka ha la ii bootiyo, systemka ha la ii hoosgeliyo, inta ha la ii sameeyo. haddii ay kuu suuro gasho oy kuugu suuro gasho maanta duruuf aanan aniga hadda fahmaynin, hadday kuugu suuro gasho waxaa laga yaabaa 10 sano kadib in lagu soo qabto. ardayga la bootiyey, midka imtixaanka been abuurka ee loo sameeyey, midka shahaadada been abuurka qaatay, waxaa laga yaabaa 10 sano kadib in dhammaan wax alla wuxuu ku kasbaday oo dhan laga wada xayuubiyo. maxaa yeelay been abuur ayuu soo sameeyey sanadkii 2022 in la yidhaahdo. marka taas baan aad iyo aad u rajaynayaa. waxaa naga go-an oo dadweynaha Soomaaliyeed u ballan qaadaynaa in si hufan loogu shaqeeyo. iyagana waxaan ka rajaynayaa gacan iyo xilkasnimo iyo garasho. waxaa ii hartay marka ayaan dhaweyd waad ogeydeen imtixaanaadka arday ayaanu hakinin natiijadooda in la soo dhajiyo. maxaa yeelay nidaamka ayay ku xadgudbeen. sidoo kaleeto dadaalkii intaa la eg markaan samayno oo wasaaraddii iyo howlwadeennadeedii iyo dadkeedii ay sidaa u shaqeeyaan oo systemkii iyo nidaamkii kulli laga dhigay nidaam aan la isku xadgudbi karin, ciddii xadgudub ku samayso shaqada iyo waxqabadkeeda sharcigaa lala tiigsanaya. marka ayaan marna loo malaynin qof intuu rabsho ka sameeyo goobta shaqada ama uu isku dayo dan asaga uu leeyahay in uu buuq iyo ku furo, inuu haddana iska nabadgelaayo oo jidkiisa iska maraayo ama howl loogu fududaynayo inaanu marin. barashada nidaamka iyo barashada kala dambeynta iyo barashada ku dhaqanka sharciga waa qayb ka mid ah waxbarashada aan doonayna dadkeena inaan barno. aad iyo aad ayaan mar kale waxaan ugu mahadcelinayaa dulqaadkii ay sameeyeen waalidiinta iyo ardaydoodaba dulqaadkii ay sameeyeen muddadii ay sugayeen shahaadada. waxaan rajaynayaa in qaar badan oo ka mid ah ay farxi doonaan. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa oo ugu mahadcelinayaa halkaan howlwadeennada wasaaradda oo runtii usbuucyadii lasoo dhaafay habeen iyo maalinba u soo jeeday sidii xaruntan loogu soo guuri lahaa,
sidii systemka loo horumarin lahay sidii wax kasta ay u noqon lahaayeen wax hufan oo cad ay u noqon lahaayeen waxaan rajaynayaa insha Allah waanu isla joognaa in maalmaha soo socda dhammaanteen aan u wada joogno in systemka si wanaagsan uu u socdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh